soo dhawaada baan idin leeyahay YouTube channelka hadda aad daawanaysidna ii kala kiciya oo subscribe ii saara maanta sheeko qurux badan ayaan idin hayaa oo ku saabsan gabdhaha iyo wiilasha dadka dhalinyarada macnaha annaga age-ka ayaga ah ku saabsan ayaan idin hayaa weliga iyo allaha ma aragtay gabadh iyo wiil aan kala hadhin oo sidaa isu daba socda gabadh iyo wiil sidaa isu daba socda oo aan ba kala hadhinba walaalo ma aha saaxiibo ma aha oo macnaha jacayl kama dhaxeeyo laakiin ma kala hadhaan waxaad arkaysaa wiil ay u yaqaanaan gabdhuhu waa gabdhaha walaalkood macnaha gabdhaha wuxuu qabta wax kasta oo ay u baahan yihiin gaarigu ku wadaa lacag buu siiyaa meeshay doonto yaa loo diraa qofkii la doonaa la dhahaa waxaa kusoo samee adigu waa gabdhaha walaalkood waa caawiye macnaha caawiye suuqana waa lagu maraa oo macnaha garabka inta la qabsado ayaa suuqa lagu maraa oo waa lagu xaragooda balse ma aha ninka saxda ah ee macnaha gabadhan ay jeceshahay ma aha waa ninkan wuxuu ka dhisaa beeska xagga beeska ayuu u xilsaaran yahay gabadhu waxay leedahay saaxiib run ah bay leedahay oo ay mar walba la hadasho jeceshahay laakiin kanuna wadada lagu maraa lacagtu bixiyaa gaarigu ku wadaa waa gabdhaha walaalkood abuu gabdhuhu isma yahay gabadhan ay wada socdaan saaxiibadeed oo dhan gaarigu saaraya uu kaxaynaya xafladu u geenaya uu soo ciyaarsiinaya waqti ku soo luminaya asagu wax gool ma laha wax macnaha tilmaan ah oo macnaha u meelaysan ma laha gabadhu waxaa laga yaabaa inay is leedahay ninkan waa walaalka kuma jecla hataa ismaba geedaanba ninkaas ka waa walaalka iyo aaminsan tahay laakiin caadi ahaanta wuu jeclaan karaa wuu aroosi karaa oo wuu geeyaa okay laakiin ayadu waxay aaminsan tahay in una jeclayn walaalkeedo kale uu yahay haddaba rag noocaas ah way jiraan waxaa laga yaabaa adiga daawanaya in aad ka mid tahay sababta ku kalifaysa dhalinyarada noocaas oo kala sababta waxa ku kalifaysa haddaba aan idin sheego oo aan idin ka daba geeyo waana qash aan u sheegayo gabdhaha kuwooda macnaha sidaas sameeya ama ay helaan macnaha nasiib u helay inay ninka noocaas oo kala helaan horta ninka noocaas oo kala gabdhuhu waxay u yaqaanaan nin aan waxba isku hayn aadahaanta nin aan waxba isku haynin bay u yaqaanaan oo gabdhaha walaalkood ah balse waa sax oo waa run arrintaas nin aan waxba isku haynin inuu yahay waxa cadaynaya ninkan karti ma laha uu gabadha ugu soo bandhigto jacayl ama waxyaabaha runta ee uu aaminsan yahay niyadiisa ku jira isagana uu dareensan yahay ama uu fiil garaynayo ma awoodo inuu u sheegto wuxuu aaminsan yahay haddii uu gabadhan jacayl usoo bandhigto ama uu la hadlo oo si real ah ula hadlo oo dariisa goonida kula hadlo in ay asagii gabadhu sabreen noqonayaan oo ay kala fogaanayaan buu aaminsan yahay balse haddii uu lacag siiyo gaariga ku wado soo dhow wadwado wuxuu aaminsan yahay in aanay kala fogaanayn in aad kala fogaataan oo adiga lagu shaqaysto waxay dhaantaa adiga oo dantaada ka hadla kalena fogaataan okay taasaa ka fiican okay waxaad arkaysaa wiil iyo gabadh sheekaysanaya waxaa laga yaabaa in ay tahay markoodii iskugu horreysay waxaa laga yaabaa wiilku inuu gabadha soo waco okay gabadha wiilku la soo soo waxaa laga yaabaa in uuna aqoonin meeshii laga bilaabi lahaa sheekada ama bartii laga bilaabi lahaa ma fiican tahay waa la socaya halo hay iblamia fiican tahay maasha allah alxamdulilah ma joogtaa halka aad baa fiican wallahi maasha allah alxamdulilah waan fiicnahay maasha allah alxamdulilah ayaa waxay qaadanaysaa 40 daqiiqo ma yaqaano topic iyo macnaha meelo dulduleela wax laga gala doono ma yaqaano waxaa laga yaabaa gabadhu in ay dhahdo marka dambe maxaad iga soo wacday xageed ugu aragtay lambarkayga ku siiyay su'aalahaas ayaaba laga yaabaa in uu ka jawaabi waayo waxaa laga yaabaa in uu la imaan waayo idea ama sheeko oo gabadha uga sheekeeyo si uu u soo jeeto ama uga xado qalbigeeda
اوكي هذا قلبي قبلها ما الحالات سؤال aad ugu maasantiin boqolkiiba boqol fiidiyogan iyo fiidiyo la mid ah waxaan kaga tagaystaa iyo amaan Allah waxaan aaminsanahay sheekadan inay sheeko macaan tahay oo run ah wax run ah inay tahay macnaha ama ha qaraaraato ama ha macaanaato balse aan waxaan aaminsanahay sheeko run ah lacagtu bixiya gaadhi ku wada waa gabdhaha walaalkooda oo gabdhuhu isma yahay gabadhan ay wada socdaan saaxiibadeed oo dhan gaadhigu saaraya oo kaxaynaya xafladu geenaya oo soo ciyaarsiinaya waqti ku solmanaya asagu wax gool ama laha wax macnaha tilmaan ah oo macnaha u meelaysan ma laha gabadhu waxa laga yaabaa in is leedahay ninkan walaalka kuma jecla hatta isma geedaanba ninkaas kale waa walaalka iyo aaminsan tahay laakiin caadi ahaanta wuu jeclaan karaa wuu aroosi karaa oo wuu geeyaa okay laakiin ayadu waxay aaminsan tahay in una jeclayn walaalkeedo kale uu yahay haddaba rag noocaas ah way jiraan waxa laga yaabaa adiga daawanaya in aad ka mid tahay sababta ku kalifaysa dhalinyarada noocaas oo kala sababta waxa ku kalifaysa haddaba aan idin sheego oo aan idin ka daba geeyo waana qash aan u sheegayo gabdhaha kuwooda macnaha sidaas sameeya ama ay helaan macnaha nasiib u helay inay ninka noocaas oo kala helaan horta ninka noocaas oo kala gabdhuhu waxay u yaqaanaan nin aan waxba isku hayn aadahanta nin aan waxba isku haynin bay u yaqaanaan oo gabdhaha walaalkood ah balse waa sax oo waa run arintaas nin aan waxba isku haynin inuu yahay waxa adaynaya ninkan karti ma laha uu gabadha ugu soo bandhigto jacayl ama waxyaabaha runta ee uu aaminsan yahay niyadiisa ku jira asagana uu dareensan yahay ama uu fiil garaynayo ma awoodo inuu u sheegto wuxuu aaminsan yahay haddii uu gabadhan jacayl usoo bandhigto ama uu la hadlo oo si real ah uu la hadlo oo dariisa goonida kula hadlo in ay asagii gabadhu sabreen noqonayaan oo ay kala fogaanayaan buu aaminsan yahay balse haddii uu lacag siiyo gaariga ku wado soo dhow wadwado wuxuu aaminsan yahay in aanay kala fogaanayn in aad kala fogaataan oo adiga lagu shaqaysto waxay dhaantaa adiga oo dantaada ka hadla kalena fogaataan okay taasaa ka fiican okay waxaad arkaysaa wiil iyo gabadh sheekaysanaya waxa laga yaabaa in ay tahay markoodii iskugu horeysay waxa laga yaabaa wiilku inuu gabadha soo waco okay gabadha wiilku la soo ma waxa laga yaabaa in uuna aqoonin meeshii laga bilaabi lahaa sheekada ama bartii laga bilaabi lahaa ma fiican tahay waa la socaya halo hay iblamiya fiican tahay ma sha Allah alxamdulillah ma joogtaa halka aad baa fiican wallahi ma sha Allah alxamdulillah waan fiicanahay ما شاء الله الحمد لله يا waxay qaadanaysaa 40 daqiiqo ma yaqaan topic iyo macnaha meelo dulduleela wax laga gala doono ma yaqaan waxa laga yaabaa gabadhu in ay dhahdo marka dambe maxaad iga soo wacday xageed ugu aragtay lambarkayga ku siiyay su'aalahaas ayaa laga yaabaa in uu ka jawaab waayo waxa laga yaabaa in uu la imaan waayo idea ama sheeko oo gabadha uga sheekeeyo si uu soo jeeto ama uga xado qalbigeeda okay hadaba qalbiga gabdhaha meel xalaataas waa su'aal aad ugu maasantiin boqolkiiba boqol fiidiyogan iyo fiidiyo la mid ah waxaan kaga tagaystaa iyo amaan Allah waxaan aaminsanahay sheekadan inay sheeko macaan tahay oo run ah wax run ah inay tahay macnaha ama ha qaraaraato ama ha macaanaato balse aan waxaan aaminsanahay sheeko run ah